war asxaabay soo dhawaada fiilinkii filimada sanadkan ugu saameynta badnaa ayaan maanta falqeynaynaa ka hadlaynaa filinkan waxaa la kalkii waxaa jilaya Barbaas Dabiika iyo Amitabh Bachchan. Filinkan waa filin quraafaada oo ka hadlaya waxyaabo aan quraafaadnimadiisa aan la qaadan karin, hase yeeshee dadweynaha hindida ah aad iyo aad bay quraafaadka ama waxyaabaha khiyaaliga uga dambeeyaan. haddii aan tooda u raacno waxa weeyaan filinkan saddexdan jilaa ma kala dhacaan. ninkan yar isaga laftiisa filinkan sameeyo nin saaxadda ku cusub oo maaha director aad iyo aad u magac weyn, hase yeeshee filinkani waxa weeyaan waa khiyaali aabihiis. waxuu ka hadlayaa waxyaabo nolosha qof macnihii caruur iyagoo caloosha ku jirta aan dhalan la dilayo, qaybka yacni lagu dilayo, kadibna ay awood kale ay soo noolaysiinayso. marka filinkan Barbaas wuxuu yeeshay awood aan inaba caadi ahayn sidii uu Bahubali u sameeyey. marka awoodiisa xidignimo iminka megastar buu isu bedelay. marka waxa weeyaan filin kasta oo aan macno lahayn ama sheekadiisu xoogaysayn ama xoog lahayn ninkan waa nin gadi kara. hase yeeshee filinkan qayb weyn waxaan macnihii actor koobaad ayuu ka yahay. Dabiika laftigeeda waa gabadha iyaduna aad u saameyn badan oo filmaan badan iminka jishay loo dhiibay, sheekooyin badanna filmaan badanna ay sugayaan. laakiinse filinkan Amitabh Bachchan lama yareysan karo. filinkiisa Amitabh Bachchan baa wada oo awoodiisa yacnihii wuxuu ku jilayaa inaba aan caadi ahayn wadaadkii kuwii quraafeedka ugu weynaa. asxaabay intan waa in hordhaca oo aan kasoo gaarsiiyey. marka filinkan waxa weeyaan dadaba badan baa siyaabo badan oo falanqeeyay oo uga fikir celiyey, inkastoo aan diinta islaamka aan ogoleyn haddana waxa weeyaan dadkeena Soomaalida aad iyo aad bay filmaanta hidiga u daawadaan, ugu madadaashaan, waqtiga ugu lumiyaan, inkastoo waqtigu uu shay qaali aad iyo aad u yahay. marka intan waa hordhac aan idin wadaagay. marka YouTube-ka subscribe saara, like saara, sii share gareeya. intaan muuqaalka xiga ku kulmi doono. waan salaamay.